السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno bulshadeena waxyaabaha dhib ku ah oo aad iyo aad u dhibay inaan ka hadalno khaasatan waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay arrimaha daawada ama farmashiista ah waxaan leeyahay dadweynaha magaalada muqdisho ku nool daawooyinka iska isticmaalayaan bilaa micnaha u isticmaalayaan aan rabaa inaan ka hadlo waxaana noo socon doono taxanana noo noqon doono waxaana dul istaagi doonaa mar had iyo jeerba waxaan dul istaagi doonaa daawo walbo iyo khatarta ay leedahay iyo saameynta oo qofka jirka bilaadanka ay ku noqon doonto saameyn ay ku noqon doonto waxaan ka bilaabeynaa dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ama ha noqdo qof oo maaragtay dawada adapted ku noqday ama qof oo hadda bilaabay ha noqdo inta badan waxaan leeyahay waxaan ka hadli doonaa barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa dawada la leeyahay tramadol waa maxay tramadol tramadolku waa kaniini dhibaateeya bulshadeena ku nool magaalada muqdisho khaasatan dhalinyarada iyo maaragtay dadka jiilka hadda soo baxay dhibaateynayo bulshadana ay aad iyo aad ugu dhiqabto kaasoo had iyo jeer ay maaragtay u isticmaalaan daawada si antadaloora camal ay u isticmaalayaan kolley kaniiniga tramadolka ah waxyaabaha uu leeyahay ayaan meeshan uga hadli doonaa qofka isticmaala daawadaas tramadolka waxyaabaha uu kala kulmi doono dhibaatada uu ku leeyahay ama uu gaarsiinayo nafsad ahaantiisa iyo maaragtay dhibaatada uu ku leeyahay ayaan ka hadli doonaa soo dhawaada waxaan leeyahay subscribe-ta like-ta iyo share-ka nagu saacida okay aan hore u dhex galno kaniiniga waa maxay kaniiniga tramadolka ay bulshada aad iyo aad ay u isticmaalaan okay tramadolka muxuu keenaa xanuunada oo keeno waa maxay tramadolka waxyaabaha uu keeno waxaa ka mid ah lalabo joogto ah iyo matag madax wareer qofkii oo lalabooda maanta dhan oo iska socdo u maleeya inuu maaragtay xanuunsan yahay ama maaragtay cudurro uu qabo maanta dhan wareerayo maanta dhan uu lalaboonayo midda labaad waa madax wareer macnaha qofkii oo u maleeyo jiha uu u socdo maahane jihada kale inuu socdo ayuu u maleeyaa marka saas darteeda derbiyada iyo meelaha uu u maleeya inuu ku dhici rabo waxaa keenayo kaniiniga la leeyahay tramadolka waxaa kalooto jiro uu leeyahay waxaan kaloo sheegaynaa hurdo badan qofka inuu marka hore uusan hurdin oo hurdada in badan raadiyo maaragtay markii dambena markuu hurdana laga kici waayo si maaragtay uu u jiifto si xadka baxa u jiifto oo ama salaad loo kici waayo ama maaragtay cunto loo kici waayo ayuu gaarsiinayaa okay waxaa kaleeto jiro in uu leeyahay calool fadhi qofka inuu ku rido calool fadhi macnaha calooshii oo xiranto macnaha wax saxaraa iska waayo raashinka wuu cunaa wax saxaraana kama imaanayaan constipation inuu ku dhaco qofkan okay waxaa kaloo ku xiga afqaleyl inuu qofka ku dhaco afqaleyl maanta dhan inuu faruuryaha candhuuf ka raadiyo oo yiraahdo maanta dhan afka uu ku marmaro carabka ku raadiyo saasay tahay waxaa kaloo xiga daal ama tabar daro macnaha markii qofkii jirkiisa uu ka dhammaado ama uu ka bixi rabo waqtiga uu cunay saacado kadib markuu ka dhammaan rabo ama ka bixi rabo inuu dareemo daal iyo tabar daro oo xadka baxa sida murqii inay garaacmayaan lafi inay garaacmayaan sanka inuu ka yimaado diif inuu ka yimaado ayuu sababaa waxaa kaloo keenaa madax xanuun in maanta dhan uu ku jiro madax xanuun joogto ah ama jirkiisa asiga ha ku jiro ama ha ka maqnaado inuu madax xanuun joogto ah ku haayo ayuu keenaa okay dhibaatada uu leeyahay dhibaatooyinka oo halista ah uu leeyahay tramadolku waa maxay neefsashada oo gaabatsata macnaha neefsashada oo gaabato macnaha qofkiiba inuu neefso waayo gaar ahaan qiyaas badata macnaha neeftii inuu neefso waayo uu raadiyo neef badan maanta dhan inuu ku jiro uu raadiyo macnaha xadkii motoorkii wadnaha ayaa wuxuu saaray in ka badan xadkii loogu talagalay ayuu dhaafsiiyey okay
wuxuu keenaa suuxdin ama qalal. Soomaalida sida u yaqaanin qalal. Qofkii inuu suuxo mararka qaar soo u fadhiyo inuu hal mar rig iska dhaho hawada ka baxo oo qalalo saacado meesha yaallo kadib biyo wax lagu bilbilo ama biyo qabow la siiyo sidii oo kusoo fadhiisto. Okay, wuxuu kaloo keenaa isbeddel maskaxeed macnaha maskaxdii oo isbeddesha ama oo keeno hilmaan ama maaragtay oo keeno waxyaabihii meeshii oo u socday maahane meel kale inuu aado qaab daradaas oo kale inay ku dhacdo ama jahwareer walwal badan niyad jab macnaha jahwareer inuu jahwareero oo maaragtay waxyaabihii uu sameyn lahaa maahan waxyaabo kale uu sameeyo ama dadkii ehelkii iyo familkii uu ku qayliyo maaragtay niyad jab macnaha qofkii inuu dareemo niyad jab wuxuusan ahayn maahane waxaas miihi ama saas miihi si uusan ahayn inuusan iska dhigin macnaha hadduu qof fiican ahaa inuu iska dhigo qof fiicnayn macnaha oo qof xun maadadaasna waxa gaarsiinayo taramadoolka dhibaatada uu leeyahay taramadoolka ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah cadaadiska dhiigga macnaha dhiigga inuu wadnihii si fiican usoo bambey waayo oo cadaadis ku noqdo gaaro inuu maaragtay wadnihii xididkii qaabkii wixii uu usoo bixi lahaa uusan usoo bixin dhiiggii oo cadaadis tiro badan uu ku noqdo saas darteed oo ku saabsamo in wadnihii garaaciisa oo bato saasna ay ku timaado suuxdinta ay ku timaado ama qalalka uu ku yimaado. xasaasiyad in uu jirka xasaasiyad ku keeno macnaha nabro barbara sidii maaragtay nabro kaa soo baxayo sida xasaasiyadda qofku inuu qabo kaleeto oo uu leeyahay maanta dha xasaasiyadda ay ugu kacsan isxoqaayo calaamadaas asaas kale marka qofka jirka ka bixi rabo jirkiisa ka bixi rabo inuu isxoqo maanta dhan gacnaha iskula jiro ama hoos ha noqoto ama kor ha noqoto ama maaragtay madaxa sida timahoo kaleeto ha noqoto inuu maanta dhan isxoqo waxaa keenaya calaamadahaas asigaa keenaya in diif tiro badan ka imaato maaragtay neeftii raadiye ka imaato waxyaabahaasba in lagu arko jirkiisa barar iyo finan iyo neef qabatoomin si uu inuu neef qabanayo macnaha in badan uu leeyahay ama finiyo jirkiisa ka soo baxa ee noqdaan taasna waxaa keeni karto asiga. soo dhawaada waxaan idin leeyahay mar kale nagu saacida subscribe-ta like-ta iyo share-ka soo dhawaada waxayna inoo noqon doontaa insha Allah barnaamijkan mid taxana ah oo noo sii socon doono aan kaga hadli doono mar walbo dhibaatada ay leedahay daawada la iska isticmaalayo midda saxda ah iyo midda saxda ahayn macnaha midda saxda waxaa ka wadaa midaan oo dadka aan maaragtay inta badan bulshadeena iska barteen inay iska isticmaalaan iyo midaan oo ah daawooyinkan loo cuno sida maaragtay daawada hadda caawada aan kasoo sheekeynayo kaleeto loo isticmaalo jirka lagu jahwareeriyo iyo midaan caadiga oo sida dadka ay u barteen sida kaniniga gaaska oo kale kaninigan oo paracetamolka oo kale iyo kaniniga la leeyahay tegmolka oo kale waxaas waa kasoo sheekay doonaa mid ayaan u dul istaagi doonaa insha Allah na soo dhaweey idinkan nagu saacida subscribe-ta like-ta iyo share-ta soo dhawaada